Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. waa saqdhexe oo habeenkii ah. meeshan waxaa fadhido hooyo oo ku sugan xaalad aan la garanaynin ilaa dhowr saac. waxaana agteeda jiifaa wiilkeeda yarka ah oo isagana iska oynaya ilaa muddo. waxay ahayd mid aanan wax danaynisinin cunugaas yarka ah, balse cunuga yarkana waxa uu ahaa mid aanan aamusaynin oo intaas oynayo. hooyadiis waxay ku sugnayd xaalad aysan iyada xitaa is ogeyn waxa ay ku sugan tahay. in muddo ah markii ay xaaladaas ku sugnayd, cunugii yaraa waa u daalay, wauna iska seexday isagoo gaajaysan, sidoo kaleetana aad u oynaya. waxaa kuu soo hartay hooyadii. waxay bilowday inay kursiga si kale ugu fadhiisato, kadibna ay mid mid u gurto tintayda. waxay intaas guraysaa oo ay tirinaysaa tinta madaxeeda ku taala, oo ay u guraysaa mid mid sidii qof walan oo kaleeto. hooyadan waa mid ku sugan xaalad aad u adag. hal mar ayay dib u soo laabatay, kadibna waxay soo qaadatay cunugeedii yareed. hoosta ayay gashatay waayna dhunkatay. waxay geysay sariirtiisii caadiga ahayd, kadibna waxay u doontay caano. caanihii ayay u soo qastay, wayna u keentay cunugii yaraa. wuxuu ahaa mid aad u gaajaysan. markiiba intii uu caanihii qurquriyey ayuu iska seexday. waxaa kuu soo hartay hooyadii. waxay iskaga soo laabatay jikadii, kadibna waxay bilowday inay iska dhaqdhaqdo alaabaha, balse waxay maqlaysaa codad aad u cabsi badan oo dhageeda ku soo dhacaya. qaylooyin aad u tiro badan oo dhageeda ku soo dhacaya, xitaa ay howlii ka qaban weysay. dhagaha ayay qabsataa, balse waxaas ma joogsadaan. waa ay qaylisaa, wax isbeddelaya ma lahan, oo weli waxay maqlaysaa codad aad u cabsi badan. waxay u soo carartay dhankii iyo wiilkeeda. albaabka ayayna hoosta ka soo xiratay, kadibna waxay ag fadhiisatay sariirtii wiilkeeda. waxay bilowday inay derbiga madax ku garaacato iyadoo leh ha ooyni aamus. derbiga ayayna madaxa si xoog ah ugu sii gargaraacaysay, marba mar kaga dambayso, iyadoo ku leh aamus ha ooyin. markii ay in muddaha madaxa saas ugu garaacanaysay ayay socday gebi ahaanteedaba. dhowr saac markii ay ka soo wareegatay, waxay soo kacday muddo kadib, iyada oo ku soo kacday oohinta cunugeedii yaraa, weliba si zaa'ida u oynaya. iyadana oohin kale ayay ku sii dartay. waa ay iska oysay, waxay samaysan ma garanayso. haddaba gabadha ayay ahayd. ilaa iyo hadda muuqaalka waad daawanaysaa, balse like maada saarin. isku dayna like saartid, janaalkana aad subscribe saartid. mahadsanid. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Daisy. waxayna ahayd gabar 23 jir ah, aadna u qurux badnayd, dhiganaysana kuleed ka mid a kuleedyada magaalada ku yaala. waxayna isbarteen wiil lagu magacaabo Nicky. aad ayayna isku fahmeen, waxayna go'aansadeen inay isguursadaan labadooda. muddo kadibna qorshoodu ay ku guulaysteen oo waa ay isguursadeen labadoodii. waxay degeen guri iska yar oo iska caadi ah oo bannaanka magaalada ku yaala, waxaanan magaalada saa uga sii fogan ayay ahayd. waxay ahaayeen laba qof oo aad isugu farxsan, si fiicanna isku fahansan. waxayna muddo kadib u sheegtay inay iyada uur leedahay, balse waxay yaab lahayd markii ay Daisy uur ka qaaday. waxay bilowday dabeecada aad u la yaab badan. way isbeddeshay. waxay joojisay gebi ahaanba inay cunto. waxay joojisay inay seexato. dhammaan dabeecadihii caadiga ahaa oo ay Daisy lahayd waa ay joojisay. waxayna la soo baxday dabeecado kale oo ka duwan. qaab jirkeedii waa isbeddelay, iyadoo idilna waxay noqotay qof kaleeto. maalmaha ka mid ah, Nicky warqad ayaa u timid. warqadaasoo dhankaasiyo militariga uga timid. waxaana lagu yidhi dhaqso, waa inaad imaataa. waxay ku tiri xaaladdaana ku sugan oo ujeeddaa xaggay iga tegaysaa. ila joog, xaaladdan waa mid aad u adag, anigana igu adag. waxaan jeclaan lahaa inaad la joogtid. asuu yidhi way adagtahay inaan kula joogo, balse sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kuugu soo laabanayaa. muddo yarba kadib, waxba ha ka sii walwalin. in yar kadib waan kula joogaa. mar walbana dhakhtar kala xiriir, maalin walbana la soco caafimaadkaaga. kadibna Nicky waa u baxay. aad ayay uga murugowday arrinkaas, wayna isku eeysay, balse
ma ahayn wax ay iyada wax ka qaban karto. iyadana waxay bilowday inay uurkii la silaacdo, xanuunkii kalena inuu xanuun ugu sii darsamayay bilowday. gebigeediba waa isbeddeshay, jir ahaan, maskax ahaan iyo xitaa qaab ahaan. Daisy muddo kadib waxaa u dhashay cunugeedii yaraa oo waxa ay yeeshay wehel ku weheliya nolosha inta uu maqan yahay ninkeedii. aad ayay wiilkeeda u jecleed, balse waxaa yaab lahayd inay la soo baxday dhaqamo aad u yaab leh. waxay ahayd marmarar ka mid a hooyo aad u fiican, aad u wanaagsan, cunugeedana aad u daryeelaysa. mararka qaarna waxay ahayd hooyo la yaab leh, aanan wax dana ka lahayn wiilkeeda, xitaa aanan fiirinaynin. waxay muddo badan ku qaadan jirtay sawirkii arooskeeda. muddo kadib maalin maalmaha ka mid ah albaabka ayaa loo soo garaacay. albaabka markii ay furtay waxaa joogay ninkii boostada. waraaqada inuu dhiibay. markii ay akhrisay wax waraaqada ku qornaana waa ay muraaro dilaacday, oo waxaa waraaqada ku qornayd geerida ninkii ee adduunka ugu jecleed. way isbeddeshay gabadhii. awal ayay xaalad aad u adag ku sugnayd, haddana aad ayay isku sii beddeshay oo noloshii ayaaba ku soo duntay muddo yar gudaheed. waxay islahayd hadda ay nolol ku hagaagtay, balse dhan kale ay haddana ka duntay noloshii gabadhan yar ee Daisy. waa ay hoosay, waa ay rafaaday, waxayna qaaday murugo aad iyo aad u tiro badan. habeenkii maseexato wax badan ayay soo jeedaa. waxaa balse markaan ugu darsamay qaylooyin aad u tiro badan oo ay maskaxdeeda ka dhex maqlayso. saacadaha habeenkii oo idil waxay ku soo qaadataa soo jeed aysan garanayn sababta ay u seexan la'dahay. waxay bilowday inay derbiyada ku sawirto sawirro aysan xitaa iyada garanaynin. waxay bilowday inaysan cunugeeda daryeelin. Daisy marka dambe aad ayay u xanaaqday, waxayna kala jebisay gebi ahaanba sawirkii arooskeeda. aad ayayna u qaylisay, wayna oysay. cunugii kalena maxaa ka sugaysaa? isagana sidoo kaleeto waa uu ooyay markii uu qayladii hooyadiis maqlay. Daisy qayladii ayay aad uga sii xanaaqday. waxay soo qaadatay muraayad jabkeeda, waxayna bilowday inay disho cunugeedii yaraa. waxaa yaab leeyahay markii ay aragtay cunugeeda oo dhintay, waxay bilowday inay qosasho, weliba si la yaab leh, sida qof aanba naxariis lahayn. wax yar kadib waxaa soo labtay dareenkeeda oo waxay aragtay wiilkeedii yaraa oo meyd ah oo ay iida gacanteeda ku dishay. way aamin weysay, wayna qaadan weysay arrinkaas. dhabta ayay soo saartay, waxayna bilowday inay oyso. waxay soo xasuusatay geerida ninkeeda, haddana geerida cunugeeda waa wax aysan qaadan karin marnaba. Daisy waxay go'aansatay inay iyadana dunidan iskaga tagto. waxay soo qaadatay muraayada jabkeeda, kadibna waxay iska jartay qoorta iyo gacanta. sidaas ayaana iyadiina ku geeriyootay. sheekadan aad ku cabsida badan waxaa akhrinaysaa Deviya. waxayna dareentay cabsi aad u tiro badan, waxayna la yaabtay sheekada buugga qofkan qoray. wuxuuna ahaa buug aad u cabsi badan. wax kastana waxaa ka darnayd in sheekadan ay qayb yar uga akhrisay oo qaybtii kale ay weli dhiman tahay. waxayna la yaabtay in sheekadu ay tahay mid aad u cabsi badan, aanan hore loo sii wadi karin. haddana waxay sii xiisaynaysay inay ogaato wixii dhacay markaas kadib. waxayna la yaabtay hooyo cunugeeda dilaysa iyo sheeko noocaas oo kaleeta ah. waxaan waaba sheeko aad iyo aad u cabsi badane, balse waxay go'aansatay inay sheekadan wax walba ha dhacaane inay horey u sii wado si ay u ogaato wax walba oo dhacay markii dambe. waxay soo gedisay bugi kale, waxayna bilowday inay sii akhriso. kadib geeridii Daisy iyo cunugii yaraa, gurigaas cid soo booqatay ama ogaatay ma lahan, xitaa cid soo gashay ma lahan. sababtoo ah ciddaan sidaan hore u sheegnay magaalada way ka yara baxsanaayeen, derisna ma lahayn, taasoo keentay inaysan cidna soo booqanin labadooda. halkaasna waxaa muddo iska yaalay meydkii gabadha iyo cunugeedii yaraa. waxaa ka soo wareegtay muddo aad u tiro badan. 20 sano kadib waxaa guriga yimid ninkaas wuxuu go'aansaday inuu gurigan gudaha u galo si uu u ogaado xaqiiqada gurigan iyo waxa gudihiisa ka jira. gurigii ayuu gudaha u soo galay, kadibna wuxuu bilaabay inuu gudaha guriga sii galo isagoo wato toosh yar. waxaa yaab ahayd soo gelistiisii koowaadba inuu maqlay waxyaabo aad u cabsi badan.
qaylooyin, hadallo. wuxuu fahmi waayey in gurigan uu yahayba guri la degan yahay. kursiga guriga waxa uu ahaa mid iska dhaqdhaqaaqaya. waa guri 20 sano ka hor laga guuray, balse kursigiisa weli u dhaqdhaqaaqayo. wuxuu maqlaa ooyinta cunug yar, wuxuu maqlaa qaylo, wuxuu maqlaa hadallo sida dad inay sheekaysanayaan oo kaleeto. wuxuu dareemayaa cabsi. bannaanka ayuu soo istaagay. xilligana wuxuu ahaa casar liiqaad. wuxuu la yaabanaa dadka hadlaya xag meeshii joogaan. wuxuu is yidhi bal yaro gudaha u gal si aad waxyaabo kala badan u soo ogaatid. waxaa yaab ahayd inuu maqlaayo mar ka mid ah ooyinta cunug yar, qaylada naago, hadal iyo qosol. waxaasoo idil wuxuu wuxuu fahmi waayey. guriga si walba ayuu u fiiriyey isagoo isleh war qof uun amaad ku aragtaa gurigan. waa iskaga soo cararay gurigii. dib dambena uguma uusan laaban gurigaas. qof kalena gurigaas dib dambe uma uusan gelin. Divya waxaa soo agsaagtay saaxiibteed kadibna gacanta ka taabatay, wayna ka naxday. waa saaxiibta Divya, Layla. waxay ku tiri saaxiibeye, sheekooyinkii waa ogtahay inay cabsi beenayihiin, haddana waa cabsanay miya? sheekooyinkan beenta iska daa. markaasay Divya tiri saaxiibey, been ma ahniyo, sheekadan si kaleba waa cabsi lahayd. waxaan la yaabay sheeko waxay ahayd aanan weligii nooceedu kale hore u arkin. waa sheeko la yaab leh misena cabsi gaara la xitaa. aniga xitaa waan dareemi waayey wax iga khaldan. waa cabsi ayaanba dareemay sheekadan inta akhrinayay. anigoo xitaa ma aaminsanin waxyaabahan cabsida iyo ruuxaanta ah. way ku qosashay Layla, waxayna ku tiri waad cabsatay iska dhaaf. waxaas wax laga cabsaday maahan, waana khiyaali, wax jirana maaha. oo kaale saaxiibey, adigoo wax baratay oo wax walba fahansan ayaa haddana sii cabsanaysaa. waxay kula tahay in haddaan muraayad hor istaago oo aan baby blue waxaas ku celceliyo inuu cunug yar aan arkaya ma cunug yar gacanta ii sarmay. waxaas khiyaalkaas waa waxyaabaha carruurta yararka loogu sheekeeyo. marka waxaas inaa aamintid xitaa ma ayna hataa inay maskaxdaada kusoo dhacdo. waxaas waa wixii ciyaalka yaryarka loogu sheekeynaya saaxiibe. marka waxaas inay cabsatid maba loo baahno. Layla maxaa kaa khaldan adiga? aniga waxaa maba aaminsanay, laakiin dee wax yara cabsadun baa ku dhaha sheekada. yacni sheekada awalba dareen bay ku dhisnayd, waana dareemay sheekada waa cabsi ay ahayd. cabsidii un baan dareemay. inta kaleeto waxaas nagaba dhaaf. Layla waxay tiri haye waa ku aaminin, waa ku maqlay. ayaan ka waran caawa labada marka la gaaro inaanba waxaas hadda aad sheegaysid oo buuggaani waxyaabahaas ku qorqoran haddaan samayna ka waran. oo cunuga yarka ah aanba u wacno. hadday runta waa ogaanaynaa, hadday beentahayna waa ogaanaynaa. ani maba aaminsaniba, laakiin waa ogaanaynaa bas. okay maahan. Divya ayaa ku tiri fiiri, xitaa haddii ay been tahay maxaa nagu qasbaa inaan shayaadiin iyo balaayo u wacanno habeenkii saq dhexe? saaxiibey, balaayaa noo wadaa ee naga daa. hana gelinin bad aanan ku jirin. may Divya dhegeyso, sidaas maahan. haddii xitaa wax yar aan dardareenno waa iska joojinaynaa, bartaasaan ku joojinaynaa sheekada. marka wax walba waa la tijaabiyaa, aan tijaabin. waxaan aadna waa ogtahay inay been tahay. saaxiibey, waxaa naga daa. may saaxiib, wax dhiba ma lahan ee nagu wad. caawa labada markay tahay ayaan soo kacaynaa, waana samaynaynaa. waxaa la gaaray xilligii lagu ballamay, waana 2dii habeennimo. waxaa isa soo raacay 2dii gabdhood ee saaxiibada ahaa, Layla iyo Divya. waxay yimaadeen musqusha ku taalay meeshay deganaayeen. kadibna waxay bilaabeen inay ka wada hadlaan. waxayna tiri Divya saaxiibey, waxaan haddaa baxarkan soo galta dabogo. Layla waxay tiri waxaan wax jiraba horta ma yahay, soo kama warayso. waa been, waa iska tijaabinaynaa le maahane, waxaan wax jiraba horta maahan. halkaas markii sheekadii marayso, nalkii ayay dansadeen si ay u howlgalaan oo balaayadan ay farahi la geli rabaan ay u bilaabaan. waxay daatay shumcooda, waxayna sameeyeen steeb walba oo loogu talagalay in cunugaas yarka ah ee jinka ah ee aanan joogin loogu wici lahaa. Layla ayaana bilowday in ay u wacdo cunugii yaraa, samaysana waxyaabihii loogu talagalay in loo sameeyo. markii ay muddo waday, misena wixii ay dareemtay in ay ilaa muddo joogaan, ayaa hal mar waxay dareentay dareemo aad u cabsi badan. marba markii ka dambayso wax ayay dareemaysay, ilaa ugu dambeyn lagu yidhi aamus. way joojisay, wayna cabsatay. geesaha ayay feerfeerisay iyadoo aad u yaaban, balse markaan wax ayay dareentay oo sideedii hore ma ahan.
shumicii wuxuu ahaa mid weli daaran. way sii waday wixii ayna hore uga sii socotay inay akhriso. gacanteeda ayayna ku aragtay cunug yar oo cad oo saaran. yacni cunug caadiya maahan, laakiin muuqaalka cunugoo kaleeto. waxa ay dareemeen jawigoodana waa u isbedelay. waxaana yaabayd inay muraayada ku aragtay qof iyada geeskeeda taagan oo wejigeedana yahay mid aad u cabsi badan. qosolna waa lagu soo dhaweeyey. la soco qaybta labaad ay sheekadaan si aad ula socoto subscribe sidoo kalena muuqaalka like saar. ma mahadsani.